maalmihii dambe magaalada Muqdisho ay ka jirtay xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay mooshin laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa arintaasi waxaa ka hadlay wasiirka dastuurka maamulka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Sheekh Xasan waxa uuna sheegay in arintaasi ka jirta baarlamaanka Soomaaliya loo baahan yahay in si sharci ah lagu xaliyo waxa uuna shaaciyay mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari in loogu kala baxo si sharci ah ugu dambeyntii waxa uu la dardaarmay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxaan arkaynaa marka iyadoo lagu kala bixi karo sharcigi in qoliyo kale oo xildhibaanada kamid ay leeyihiin hadii gudoomiyaha cod loo qaado magaalada waa la isku dilayaa waa la islaynayaa hadii gudoomiyaha Jawaari macnaha looga guuleysto codka inta baarlamaanka la tago xildhibaanada noocaas u fikiraya ee waliba barahooda bulshada soo dhigaya in dhibaato dhacaysa hadii qof cod looga adkaado waxaan xusuusinayaa madaxweynayaal cod looga adkaaday si nabad ay ku baxaan maaha marka in oo ay noogaga dhigaan waxa iyagu ay rabaan inay sharci yihiin wixii aysan iyagu rabin ay sharci darro iyo wax dhiig ku daadanayeen maaha fariintaas qaldan ay shacabku gudbiyaan haddii ay shaqay weysay waanti madaxweynaha iyo gudoomiyuhu wada galeen jidka kale oo furan wuxuu yahay in lagu kala baxo sharciga waana in la ogolaado oo xildhibaanada haddii isku kalsoon yihiin waa inay ogolaadaan xarunta baarlamaanka in la tago haddii la diido in baarlamaanka xaruntiisa lagu shiro majority-gu meesha raaco la raaci waayo markaasna lagu doodayo dhib dhacaya dhib wuxuu dhacayaa haddaan la codayn madaxda hadda joogta waa la soo doortay coday ku yimideen waxa dhadhanka xun la marka oo dhahaya magaaladan waa la isku dilayaa oo huba la soo baxaya oo sabtiga la islaan lahaa iyo shakhsiyaadka farakutiriska ee waliba ayagoo ganacsato haddana xildhibaan ah oo milyaneer ah isla markaasna abaabulaya yani qaab qabiil wuxuu ka muuqdo wax ku abaabulaya iyo kooxda shala xukunka ay jirtay waa dadku inay ogaadaan waay waxa meesha isku haystaa waa qolada xukunka shala ay jirtay oo xukunka ka safri la laakiin meesha lagu kala bixi karaa waxay tahay xarunta baarlamaanka waxaan ka digaynaa marka runtii oo wax aan la aqbali karin ah in la yiraahdo haddii baarlamaanka xaruntiisa la tago waa la isdilayaa huba la soo baxaya ayadoo madaxweynayaal laga adkaaday aan la isdilin madaxweynayaal soo diyaarsaday inay yani xildhibaano soo qortaan aad ogtihiin tiimka hadda meeshan ka tagay wuxuu sameeyay isagoo intaas xildhibaan soo qortay intaas oo maaragtay aad u soo galay ayaa barqal laga helay codki iridowna ka baxay sida sharci qabo marka in xildhibaanada qaar koor maanta ku doodaan haddii annaga rabitaankeena la yeeli waayo waa waxbaan dilaynaa waliba xildhibaanada loo geeyo hadda hanjabayo waa kuwii magaaladan kontraadada magaalada iyagu haystay Zeynep Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho.